waa ciyaartii kama dambaysta ahayd ee ay ku tartamayeen kooxaha ka kala socday Australia iyo dalka New Zealand iyadoo koobkan ay difaacanaysay kooxda ka socotay dalka New Zealand oo sanadkii hore ku guuleysatay ciyaartan oo aad u adkeyd ayaan wax gool ah labada kooxoodba aanay iska dhalin muddadii 90 daqiiqo ahayd waxaana lagu diray 30 daqiiqo oo dheeraad ah kadibna waxaa loo gudbay gool kulaad ama rigoore guushu waxa ay ku jirtaa kabtanka xiran nambarka 8 ee kooxda North Melbourne lugtiisa haddii uu goolkan u dhaliyo waa kuwan iyagoo taageerayaasha la dabaaldegaya kooxdii badisay ee North Melbourne Supporting North Melbourne. We're supporting North Melbourne. Yeah. I hope they win. Alhamdulillah, inshallah. واحد نيوزيلندا أنا لسه مركا هذا وأنا لك الرأي next year إن شاء الله. My name is Eden. Unfortunately, New Zealand lost today, but the game was rigged. So, thank you. My name is Saeed. I was supporting Team New Zealand. I think New Zealand played very great, but they lost. But it was all luck. I think New Zealand was the better team. Ahmed Dini waa aasaasaha ururka ASFA ee taabageliyay sanad walba ciyaarahan waxaana uu iga waramayaa muddada ay soo wadeen iyo faa'iidooyinka laga heli karo isdhexgalka bulshadan sanadkan waa sanadkii 13aad ay ciyaaraha inoo yihiin waxa muhiim waa in dhalinyarada Soomaaliyeed waqtiga sanadkan oo kale markii school holiday lagu jiro in la soo keeno dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka yimaada magaalooyinka Perth Adelaide Brisbane iyo kooxna ka timid New Zealand sanadkan kooxda dhalinyarada kuwa yaryar waxa raayay koox la dhaxtaanid oo ku taashay Melbourne kooxda weyn oo dhalinyarada weyn oo xaraasay North Melbourne oo ka raasay ka guuleysatay New Zealand walaal ciyaaraha dhalinyarada waxay ka mashquuliyaan waxyo badan oo caruurta dhalinyarada ay suubin karaan sida maadooriyoodka caruurta dhalinyarada iska socoto waxa isku keenay waxa way caruurta inay isbartaan Soomaalida isdhex gasho wiilashana ay helaan muxuu ahaa waqti ay energy-gooda kale meel energy gelin karaan marka alxamdulillah wallahi waxa la capacity building waa in dhalinyarada muxuu ahaa lagu mashquulaa oo la soo saaro dhalinyaro fiican oo wanaag insha Allah ciyaaraha waxaan arkaa wax fiican oo mid gareeyaan caruurta iyo barashadooda waa wax qaali ah asfa waa qiimo ballaaran ay leedahay sanad walba ayaga soo qabqabsan marka waxaan rajeynayaa intaan wax ka badan inay noogu soo kordhiyaan waana mahadsan yihiin anagana waa support gareynayna wax alla waxay u baahan yihiin waxa uu leedahay is-aragga iyo isbarashada dhalinyarada oo ay isku Soomaalida iyo culture-kooda ay dib ugu noqonayaan ayagoo isbarta wadan waxay joogaan Australia oo ariga ka soo fog magacayga waa Maxamed Qaalib Saciid runtii ciyaarihii galabta halkan ka dhacay ciyaar aad iyo aad u wanaagsan baa dhacay waxaan aad iyo aad ugu baraarujinayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Australia dhalinyarada in la baraarujiyo oo isdhexgal la sameeyo marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa magacayga Cabdiqadar Cabdi Aadan Caruus aldhaa ciyaaraha alxamdulillah Soomaalida maanta waa la isku soo saaray intaan isku arko oo familiyada is arkaan iyo gabdhihii dadka dhan
waxaa taageersanaa North Melbourne waana badiyeen tiimkaygu ahaan waana badiyeen ciyaaraha waxaan u aragnaa isdhaxgal bulsho oo ayada muhiimadda u tahay dhalinyarada ama dhalinta meeshan ku dhashay oo ka fog dunida inteeda kale isbarashadooda inay isbartaan waxaa sidoo kale ciyaarahan xiritaankooda sanad walba lagu casuumaa fanaan Soomaaliyeed oo dibadaha laga keeno haddaba sanadkan waxaa la casuumay fanaanka dalmaryare ee degan gobolka Soomaalidu ay ku badan tahay Minnesota ee dalka Mareykanka. Ladies and gentlemen, are you ready? That's good enough. Ladies and gentlemen, are you ready? Hello, Red Melbourne. How are you guys? You guys look beautiful, mashallah. boqolaal ka mid ah taageerayaasha iyo waliba dadka u soo daawasho tagay ciyaarahan ayaa la kulmaya fanaanka dalmaryare oo iyagu xiise gaar ah u haya heesihiisa waxaana markii dambe uu la wadaagay qaar ka mid ah heesihiisa afrikadu sida tayo aqoon diin baad ku soo wabato ablaha uduge arliga Soomaal ayadan shaxoodi leedahay waliba edebtoodi sida tayo ciyaarahan ayaa lagu beegaa xilliga fasaxa laga yahay iskuulada dalkan Australia Ibrahim Umar Baafe wararka Somali TV Australia